kulanti waxaan wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaada kanaalka Qiso Production Official. maanta waxaynu si toos ah u marti qaadi doonaa ama bilaabi doonaa barnaamijka taxanaha aan u magac darnay xidiga nolosha. barnaamijkani wuxuu casuumi doonaa dhammaan dadka heerka fiican nolosha ka gaadhay sida xidigaha aflaamta, xidigaha kubadda cagta iyo waxyaalaha la midka iyo dadka guud ahaanba nolosha heerka fiican ka gaadhay. waxaa macquul ah inaad taqaano ciyaaryahanka aad taageerto ama jilaaga aad taageerto kaliya magaciisa iyo muuqaalkiisa, laakiin aadan ogeyn qisada noloshiisa ee maanta halkan uu joogo. kani aynu u martiq u dooranay maanta inaynu ku bilowno waa Maxamed Saalax. aan ku bilaabay magaciisu waa Maxamed Saalax Xamid Maxruus Qaali. waa ciyaaryahan reer Masar ah. wuxuu ku dhashay sanadku markuu ahaa 1992 15 Juun ayuu dhashay magaalada Nagraaga ayuu ku dhashay. waana ciyaaryahan leh xirfadda kubadda cagta oo caalamka islaamka iyo dunida aad looga taageero. waxa uu guursaday sanadku 2013 markuu ahaa waa aabaha gabadhiisa curud lagu magac daray Maka magaalada barakeysan. sanadku markuu ahaa 2014 ayay iyana dhalatay. sidoo kale waxaa la tilmaamaa 2020 inay dhalatay gabadhiisa kale ee Kayan. Maxamed Saalax waxa muusan helin deegaan iyo nolol ku habboon inuu rumeeyo riyadii maskaxdiisa ka guuxaysay. muusan helin qalb sportis ama garoomo ku habboon oo uu ku samayn karayo waxyaalihii uu jeclaa. taasi waxay ahayd nolol iyo duruufo adag oo soo maray iyo guud ahaan familkiisa oo aan ahayn mid dhaqaale fiican haysta. Maxamed Saalax waxa uu caalamka ka sameeyay iyo xirfadiisiiba magac iyo mansab maanta uu heer fiican ku joogo. waa ciyaaryahan kale balaayiin dollar oo uu maanta ku filan noloshiisa dambe iyo mustaqbalkiisa. balse qisada xanuunka badan ee maanta ka dhigtay inuu qof guuleysta waxay ahayd inuu heer fiican nolosha gaadho, inuu xirfadiisii ku dhaqanaado isla markaana ku dadaalo sida uu magac iyo maalba uga samayn lahaa. telefishinka caalamiga ee CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay mar uu wareysi ka qaadiyay waxa uu weydiiyay su'aal ah maxaad u sujuudaa waqtiga aad goolka dhalinayso ama xilliyada aad kubadda goolka dhalinayso. wuxuu ku macneeyay inay tahay kaliya inuu Ilaahay u mahad celiyo mar kastaba allihii suurageliyay rabitaankiisa. ciyaaryahankan Maxamed Saalax waxa uu sidoo kale caawimaad siiyay dadka danyarta ah iyo guud ahaan magaaladii uu ku dhashay inuu dib u caawiyo dadkii sida xarumaha danta guud ah, goobaha waxbarashada, iskuulaadka iyo waliba jidadka. Maxamed Saalax wuxuu caawiyaa boqolaal dhalinyaro ah oo si mutadawacnimo leh wax u bara. sidoo kale wuxuu noqday shakhsi bulshada si guud u anfacay. Maxamed Saalax waxa uu rumeeyay riyadiisa waa 28 sano jir nolosha isbedel fiican ka sameeyay. taawada waxaa macquul ah inaad taageero u tahay ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Saalax, balse adiguna aad leedahay riyooyin isaga ka duwan ama la mid ah. maxaa macquul ah inay ka hortaagan dareemaysaa caqabada ka hortaagan riyadaas. barnaamijka xidiga noloshu wuxuu maanta martigeliyay Maxamed Saalax. waxaana martigelin doonaa barnaamijyo kale oo xiiso leh oo aan soo wadno oo aan ku marti qaadino xidigaha aflaamta iyo waliba kubadda cagta. fikirkaaga iyo faalladaaduna aad bay noogu muhiim yihiin. waad mahadsantahay. soo dhawow.